kulanti wanaagsan dawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan maanta barnaamijkeena ku soo qaadi doonana waxa kamid ah xog lama filaan ah oo laga helay madaxweyne farmaajo oo mar kale kaalin weyn ku yeeshay gudiyada doorashada haddaba maxaad kala socotaa xubnaha uu madaxweyne farmaajo ku yeeshay gudiyadii ugu dambeeyay ee la soo magacaabay beesha caalamka oo shardi ku xirtay bixinta dhaqaalaha doorashada Soomaaliya xilli ay dalab culus hor dhigtay ra'iisul wasaare Rooble Jabuuti oo war ka soo saartay xiisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya maxay Jabuuti ka tiri in dib loo soo celiyo xiriirkii diblomaasiyadeed ee xukuumadaha Muqdisho iyo Nairobi qodobada kale ee wararkeena waxaa kamid ah duulimaadyadii tooska ahaa ee Soomaaliya iyo Kenya oo maanta dib u bilowday kadib muddo ay xukuumadda Nairobi hakad gelisay isku socodkaasi isbedel maanta laga dareemay garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaan idiin soo gudbin doonaa iyo kooxda shabaab oo qaab la yaab leh u soo bandhigtay sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka kaasi oo isku soo dhiibay kooxdaasi qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah waana axad 13 bisha 6 ee June sanadka 2021 barnaamijkan wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka hadaba daawada ka qayb qaado dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara waad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaan fadlan la faafiyo wararka oo gaarsiiyay saaxiibadiina idinka oo ku share gareynaya baraha bulshada mahadsanidin aynu ku bilowno wararkeena waxaynu ku bilaabaynaa madaxweynaha Soomaaliya ayaa la sheegay in uu kaalin weyn mar kale ku yeeshay gudiyadii doorashada ugu dambeeyay ee la magacaabay ila waradii lagu kala soon yahay ayaa waxay xaqiijiyeen in madaxtooyada Soomaaliya ay saameyn weyn ku leedahay saddex kamid ah maamul goboleedyada dalka kuwaasi oo markii horeba taageersanaa madaxweyne Farmaajo filla Soomaaliya ayaa la tilmaamay inay gacanteeda ku soo magacawday inta badan xubnaha ee bedelka ku yimid ee gudiyada heerarka kala duwan ee maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle taasi oo ka dhigan in madaxweyne Farmaajo uu mar kale kaalin weyn ku yeeshay gudiyada doorashada ee la soo magacaabay dhinaca kale waxa soo baxay warar sheegaya in ilaa hadda madaxtooyada Soomaaliya ay faragelin ku hayso maamulka Galmudug oo ah maamulka kaliya ee aan ilaa hadda soo magacaabin gudiyada doorashada kadib heshiiskii lagu gaaray Muqdisho ee arrimaha doorashooyinka dalka dad ku dhow filla Soomaaliya ayaa waxa ay xaqiijinayaan in madaxtooyada dalka ay sidoo kale qorsheynayso inay gacanta ku dhigto inta badan xubnaha ay soo magacaabayso maamulka Galmudug waxaase la filayaa in maalmaha soo socda gudiyada doorashada heerarkooda kala duwan uu soo gudbiyo madaxweynaha maamulkaasi ee Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa uu kal hore ka dhawaajiyay in taliyaha nabad sugidda uu wali faragelin ku hayo arrimaha gudiyada doorashada waxa uu dhinaca kale u mahad celiyay taliyaasha ciidamada booliiska iyo waliba sidoo kale xoogga oo uu sheegay in ay faraha kala baxeen arrimaha doorashada dalka mucaaradka Soomaaliya ayaa iminka waxay u muuqdaan kuwa ka qoostay dhinacaas iyo filla Soomaaliya maadaama madaxtooyada dalka ay mar waliba isku dayayso in ay iyadu kaalin ku yeelato arrimaha ku saabsan doorashada iyo gudiyada markaasi la soo magacaabayo waa haga qaybaha hore ee wararkeena ayaa la socotaan waxa xogo laga helay oo waliba dheeraad ah kulankii beesha caalamka iyo ra'iisul wasaare Rooble ay yeesheen beesha caalamka ayaa la tilmaamay in ay shardi ku xirtay bixinta dhaqaalaha ay siinayso ama ay ku bixinayso doorashada Soomaaliya fulinta heshiiskii labaad ee doorashada Soomaaliya ayaa si gaabisa ku socda iyada oo ay wakiilada beesha caalamka shardi ku xireen dhaqaalihii laga filayay xogta la helay ayaa sheegaysa in wakiilada beesha caalamka oo uu hogaaminayo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswon ay gaarsiiyeen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble inay bixinayaan dhaqaalaha ku baxaya doorashada haddii ay ku dhacayso xilliga loo asteeyay oo aan laga dib dhacaynin kulamo ay yeesheen wakiilada beesha caalamka iyo Maxamed Xuseen Rooble ayaa looga hadlay dib u dhaca haysta fulinta heshiiska doorashada ee la saxiixay 27 May 2021 iyo walaaca ku saabsan in dhinacyada qaar ay doonayaan in doorasho ay noqoto ama doorashadu ay noqoto mid sii jiitanta wakiilada beesha caalamka waxay go'aansadeen in aysan bixin dhaqaalaha doorashada haddii ay kadib marto Agoosto 2021 taasi oo si cad ugu sheegeen madaxda maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha oo isagu la wareegay howlaha doorashada qaranka arrintan ayaa Rooble ku dhalisay culays kale oo ku saabsan sidii uu u dardargelin lahaa fulinta heshiiskii doorashada oo fulinta qodobkii ugu horeeyay ee gudiyada aan wali la dhameystirin xilli 15 xubnood in ka badan ama 15 maalmood aan raahday ka badan laga joogo saxiixa heshiiskaasi loona qabtay muddo 5 maalmood waxa qorshuhu ahaa oo waliba lagu heshiiyay in doorashada ay ku dhacdo muddo 60 cisho
waxaana hadda muuqata in ku dhowaad 20 cisho ay meesha ka baxday waxa soo haran ay yihiin wax iska kooban iyadoo qof walibana uu ka dharagsan yahay inta ay qaadan karto doorasho oo waliba doorasho madaxweynenimo ah maadaama la soo xulayo ergo sidoo kale xildhibaano waxyaabo badan ay markaasi iska daba jiitami doonaan. waa xagaag barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaad la socotaan warqad TV ayaad nagala socotaan. dowladda Jabuuti ayaa waxa ay war ka soo saartay xiriirka Soomaaliya iyo Kenya iyadoo dhinaca kale ka hadashay sida ay u aragto go'aankii ka soo baxay Kenya ee dib ay ugu furtay duulimaadadii Soomaaliya uga imaan jiray. wasiirka arimaha dibadda ee dowladda Jabuuti ninka la yiraahdo Maxamuud Cali Yuusuf ayaa waxa uu ka hadlay go'aanka ka soo baxay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee dib loogu soo celinayo xiriirkii xumaaday ee Soomaaliya iyo Kenya. wasiirka waxa uu markii hore soo dhaweeyay go'aanka ka soo baxay dowladda Soomaaliya ee dib loogu soo celinayo xiriirka ay la lahayd Kenya isagoo ku tilmaamay horumar weyn oo aad u ballaaran. wasiirka oo qoraal soo saaray ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay in la wada ilaaliyo nabadda iyo xasiloonida gobolka oo dhan. qoraalkiisa waxaa ka mid ahaa Jabuuti waxay soo dhaweynaysaa dib u soo celinta xiriirkii diblomaasiyadeed ee u dhaxeeyay jamhuuriyadda aan walaalaha nahay ee Soomaaliya iyo jamhuuriyadda walaalaha aan nahay ee Kenya. runtii waa horumar weyn oo ka jirta gobolkeena igaad nabad iyo xasilooni darteed ayuu yiri wasiirka arimaha dibadda ee dowladda aan walaalaha nahay ee Jabuuti. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dalbatay in guddi dhexdhexaadiya isla markaana dib u soo nooleeya xiriirkii Soomaaliya iyo Kenya in la sameeyo. waxay dhinaca kale xukuumadda Muqdisho ku dhawaaqday in ay safaaradeedii ka furanayso magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya. Soomaaliya iyo Kenya ayaa xiriirkoodii waxa uu ahaa muddooyinkii la soo dhaafay mid aan wanaagsaneyn iyadoo Soomaaliya ay joojisay ganacsiga qaadka ee ka imaan jiray Kenya halka xukuumadda Nairobi ay isku dayday in arrintaasi ka jawaabto isla markaana ay xayiraad saartay duulimaadyadii Soomaaliya inkastoo markii dambe ay furtay kadib markii la sheegay in qasaaro xoog leh ay la kulantay xukuumadda uu hogaamiyo Uhuru Kenyatta. si kastaba ha ahaatee labadan dowladood ayaa haatan waxa ay muujinayaan isku soo dhawaansho dhinaca xiriirka siyaasadda ah iyo dhinaca diblomaasiyadda waxaana la filayaa in meesha laga saaro arimihii la isku hayay oo idil. isla wararkaas ayaynu ku guda jirnaaye maanta Axada waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho si toos ah uga bilowday duulimaadyadii tooska ah ee Soomaaliya iyo Kenya kuwaasi oo hakad ku jiray muddo toddobaadyo ah sababo lagu sheegay khilaaf u dhaxeeyay labada dowladood. dib u furista duulimaadyadan waxa uu ku soo beegmay kadib markii Kenya la sheegay inay u dulqaadan weysay qasaaraha ba'an ee ay la kulmeen ganacsatadii diyaaradaha markaasi halkaasi isaga kala gooshi jiray. arrintan sidoo kale waxa ay ku soo beegantay xilli labada dhinac ay muujiyeen dabacsanaan dhinaca siyaasadda ah. garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ayaa maanta waxa laga dareemayay dhaqdhaqaaq aad u xoogan maadaama ay soo galeen diyaaradihii Kenya ka imaan jiray sidoo kalena ay ka kicitimayeen garoonka diyaaradihii aadi lahaa ee dalkaasi Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ee dalkaasi. intii ay xayrnaayeen duulimaadyada waxa ay saameyn ku yeesheen dhaqdhaqaaqa dadka ee labada wadan waxaana ka dhashay saameyn kale oo dhaqaale sida ay tilmaameen dad markaasi u dhunduleela ganacsiga sidoo kalena si weyn ula socda arimaha geeska Afrika. labadan dowladood ayaa haatan waxay ku jiraan dadaallo xoog leh oo ay ku doonayaan inay dib ugu soo celiyaan xiriirkoodii xumaaday maadaama iminka ay labada dowladood ay soo arkeen dhibaatada ay leedahay in xiriirka ay isku jaraan laba dowladood oo darisa oo waliba macaamil fiican uu ka dhaxeeyo waxaana xusid mudan in Soomaaliya markaan ay doorasho iyadu galayso. gabagabada warqad TV ayaynu isla soo gaarnay daawadayaal. ugu dambeyntii kooxda shabaab ayaa gobolka Boqol waxa ay ku soo bandhigtay sarkaal ka tirsan ciidamada dawladda gaar ahaan kuwa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo sheegtay inuu isku soo dhiibay. al-shabaab oo baahisay sawirka sarkaalkaasi ayaa sidoo kale magaciisa ku sheegtay Cornel Mustafa Xasan Ahmed kaasi oo gaaray deegaanka Garasweyne oo ka tirsan gobolka Boqol oo shabaab ay joogaan. sidoo kale kooxda shabaab ayaa bayaanka waxa ay ku sheegtay in Cornel Mustafa uu ka carooday dhibaatada ciidamada Ethiopia ay ka wadaan Koonfur Galbeed sida ay hadalka u dhigeen. sarkaalkan ayaa ka goostay ciidanka daraawiishta ee ku sugan degmada Xudur waxa uuna ku soo tababartay degmada Bardaale sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay kooxda shabaab. Cornel Mustafa ayaa dhankiisa shaaca ka qaaday in haatan wixii ka dambeeya uu ka barbar dagaalami doono kooxda shabaab. weli ma jirto wax hadal oo ka soo baxay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ku aadan sarkaalkaasi
la sheegay in uu isku dhiibay kooxda shabaab isla markaana iyagu ay soo bandhigeen. dhaqdhaqaaqa al-shabaab ayaa waxa ay ku xoogan yihiin gobolada koonfureed ee dalka, sidoo kale waxay ka dagaalamaan bartamaha Soomaaliya inkastoo ay si weyn ay ugu xoogan yihiin gobolka Shabeellaha Hoose iyo waliba sidoo kale gobolada Bay iyo Boqol. qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkeena tan iyo warkaan war la mid ah inta aynu dib ugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.